shalay ilaa xalay waxa ay u muuqatay in loo dhawaaday dagaal ka dhex qarxa Mareykanka iyo Iiraan. Daadgureyntii Mareykanka ee inta badan ciidamadiisii ku sugnaa saldhigga Al-Udeyd la yiraahdo ee Qatar. Digniinihii diblomaasiyadeed ee loo diray ergooyinka safaaradaha ee dalalka galbeedka ka jooga Iiraan iyo Israel. Joojintii duulimaadyada bariga dhexe qayb ahaan iyo digniinihii shacabka Yuhuudda ee lagu amray inay galaan gabadyada madaafiicdu waxa ay ahaayeen dhilooyinkii ugu cuslaa ee tusayay in dagaal toos ah ama tallaabo military oo khaas ah midkood goobjoog loo noqon karo. Uma dhicin sidii loo filayay oo Mareykankii docdiisa laga dhowrayay inuu gacanta la hormaro ayaa goor dambe muujiyay inayba hoosayso doonistiisa la xiriirtay in xiisadani dagaal gaarto oo madaxweynaha dalkaas Donald Trump ayaa si kadis ah u sheegay inay Iiraan joojinayso toogashada banaanbaxayaasha isagoo sidoo kale xusay inaysan jirin daldalid ama dil toogasho oo xukuumadda dalkaasi qorsheynayso. Waxaana uu ku celceliyay weedha waynu arki doonaa wixii Iiraan fasho taas ayaana ku go'aan qaadan doonaa. weeraha Trump waxa ay si dhaqso lahayd u dejiyeen xaaladii kacsanaanteeda warbaahintu doorka sare ku lahayd ee joogtay marxalad u muuqatay inaan dagaal sinaba looga baaqsan doonin. Iiraan docdeeda waxa ay sii wadatay hanjabaadeeda dhiiranaanta leh ee ay Mareykanka ugu sheegayso inuusan mar kale tijaabin quwadda istifaaca ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Wasiirka arrimaha dibadda dalkan Abbas Araghchi ayaa mar kale ku celiyay My message is do not repeat the same mistake that you did in June. If you try a failed experience, you will get the same result. Farintayda Trump ha ku celin khalad la mid ah kii bishii June. Haddaad tallaabo fashil qaado natiijadeedu fashil ayay noqon doontaa. Waa sax inaad bishii June agab badan burburisay, balse tiknoolajiyadda lama burburin karo. Karaankeenana sidoo kale lama burburin karo. Khubarada qaybtooda ayaa qaba in Iiraan isku ilaalinayso wax ka badan madaafiicdeeda balastiga ah ee qaaradaha ka goosha iyo ciidamadeeda militariga ah. Waxaa la odorasayaa inay jirto quwad inta ka ballaaran oo Tehran isku hubto inay la golo timaado haddii dagaal dhaco badan ay wajahdo. Quwaddaas oo qayb ahaan falanqeeyayaashu tilmaamayaan inay noqon karto hubka nukliyeerka ah ee la tuhmayo in Iiraan waqti dheer samaysashadiisa qarsoodiga ah ku hawlanayd. Tuhumka ah in Mareykanka iyo Israel isku dayayaan inay Iiraan ku wajahaan xeelado kale oo aan dagaal toos ah ahayn waxa uu sidoo kale tusayaa inay jirto quwad ducahani ka sariganayaan taasoo dedejinta dhicitaankeeda aysan maslaxad u arag. Khubaradu qayb ahaan waxa ay qabaan in Iiraan wax walba ku bixin doonto istifaaceeda haddii ay wajahdo dagaal ka ballaaran kii 12 maalmood. Micnuhu waa haddii Mareykanka iyo xulufadiisu dagaal horgal u noqdaan inaan Tehran haysan doonin doorasho aan ahayn inay isku difaacdo wixii ay karto. Waana halkan barta uu ka unkamayo in dhab looga fiirsado dagaal xulufo oo Iiraan ka dhana ka oo aan dhammaadkiisa dhab loo odorosi karin. Docda kale xaaladda Iiraan waxa ay u muuqataa mid deganaanshaha ku soo noqonaysa. Waxa saacadihii dhawaa si weyn hoos ugu dhacay tirada banaanbaxayaasha hawada Iiraan oo saacado kooban xanibneedna dib ayaa loo furay. Xukuumadda Tehran waxa ay sheegtay inaysan jiri doonin qisaas dhaqso leh oo lagu fuliyo kumanaanka dadka ah ee loo xirxiray inay iyagu horgal u ahaayeen rabshadaha dalkaas ka dhacay.